إسماعيل دلكم مو كمر ما حزل جهنم بغشرت ما هيسان مد كلام متلي كره نوم موقض منكم أرى إسماعيل دلكم مو كمر ما يا زلمة يا باص يا ما هيسان مد كلام متلي كره نوم موقض منام حتى جبوتي حتى رياكم عارف يعني ما لو مريو نقف إسماعيل أو كلا إنه صوب حدون هذو أنت سجى مدحوينا هاني أنا كسو جود يا ديدات الشركة شركة عبد القاسم واد ديدي مدح يسأل الله راجيو ميلو نكسن الله جيو محمد عمري أنا الله وبركة محمد عبد الله فرماتشو مدحوينها الصوص على الصوماليان سجنا محمد ولا هلاي أسبوع الرباع مركل مدحوين اللي هذا سوينا واد ديدي بالليل كواد ديدي بان أنا أقول ما عوض أحد شركة المستقبل ee xajka iyo cumradu waxay bishan ku samaysay qiimo dhimis sanadeedkii abid ugu ballaarnaa taas oo ah $200 oo kaliya waxaana lagu soo duubayaa muuqaallo iyadoo soconaysa muddo kooban haddaba walaalaha jecel in looga cumreeyo waalidiintoodii dhimatay waalidka xanuunsanaya iyo cid kasta oo ay jeclaayeen hal xiriiraan numbarada shaashada ka muuqda bismillaahir rahmaanir rahiim kula wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena dhabkaada qodobkan waxaynu ku eegi doonaa dawladda Djibouti ayaa isugu yeedhay guud ahaanba madaxda Soomaalida ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan gaar ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa la sheegay in kulan ka dhici doono dalka Djibouti loogu dabaaldegi doono Jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya dhalashadeedii oo ka dhalatay magaalada Carte ee wadanka Djibouti waynu eegi doonaa qodobkaasi si weyn baan u dul istaagi doonaa hadii Rabbi qadaro geesta kalena baarlamaanka wadanka Djibouti ayaa maanta kulan ay yeesheen waxay gabi ahaanba u xalaaleeyeen madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle in uu mar lixaad isu sharaxi karo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti bal waxaynu eegi doonaa qodobadaas kala duwan waxaana ila jooga saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulla Jaamac Jaamac سيدو صاحب إن شاء الله حال كور ولا لذي هواي فلا تكورن جيبوتي أنت قلب كوران كورين عرتك إيه مثال قصة جوجا بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يا جودها بمدة الصوماليات بيلكستو جوجتو حن لا سلام الله عليكم عرتا شركة عشان لا تنسون اللي جتشور من لبدي يكون بقى سومهين لبدي يكون بقى سومه واي لبدي يكون بيش نوفمبر ميلها بلو جدي كودي نوفمبر حليا هذا مالمي وجوري بيش نوفمبر وكا وايه waxa la yiraahdaa la isugu yeeray hadana mar kale harta waxaan uga joogaa 2000 Jamhuuriyadda Soomaaliya lagu soo dhisay heesa badan baa laga soo qaaday hadana ma Jamhuuriyadda afraad la dhisay iyo horta shirkan hadda uu Ismaaciil Cumar Geelle ama kulankan hadda uu isugu yeeray yani siyaasiyiinta Soomaalida kuwada xilalka hay iyo kuwada aan xilalka hayn kuwadii hore iyo kuwadii dambe inta suura galka yani waa attention siyaasadeed oo xilligan odaygu uu ka maarmi waayay way Djibouti isaga haday u tahay yani guul iyo taariikh uu yani shin sanayo oo uu isleeyahay alla ilaahay halkaas ma aragtay waxa ku leedahay record wanaagsan baad ku leedahay yani anaga waa taariikhdii ugu xumayd ee soo marta taariikhdii ugu xumayd ee Soomaaliya soo marta way سده Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliya u tahay waa taariikhdii ugu horeysay dawladda Soomaaliyeed kala tagtay la soo ururiyay ma taariikhdii ugu xumayd ee Soomaaliya soo martay ma in waxay ahayd shirku horta sidiisaba shir aan danaha Soomaaliyeed ka turjumaynin buu ahaa marka si dhab loo hadlayo yani aan la caadifadeynaynin aan xumaana laga dhexraadinaynin waxa kale oo yani aan ku jirin aan lagu soo dareyn Ismaaciil Cumar Geelle iyo maaragtay dalal ku taageeray qorshe waxay qaateen Soomaaliya inay sadhimanin noolaaninna meeshii bay taagan tahay marka 25 sano ka hor meeshii yani wixii loogu taliyay yaa wali jooga hadii sidii hore ay ahaan lahayd oo dawlad la'aantii iyo qabacdi ay ahaan lahayd Soomaalidu iyada baa intay isu imaatay heshiin lahayd oo waxay heshiis ku tahay samaysan lahayd laakiin halkan waxaan heshiis lagu ahayn oo cadaalad darro ah oo dulmi ah oo dhibaato ah ya ummadda Soomaaliyeed lagu dhex tuuray kadibna waan ku hafanay meel cilahan marka dabaalanayna waxaan ku raahdaa halka aan yar istaagno baad yaan ku dabaalanayna halka aan yar istaagno dadka qaar waxay aaminsan yihiin oo waliba Soomaali badankeeda 1990 markii dawladdii kacaan ku burburtay ee Soomaali kala carartay dhowday ee qabaal isu laayay ee Soomaali meeshay isku xasuuqday 10 iyo sano oo ay qabqablayaal iyo balaay dadka haysteen iyo jabhado
ismaaciil cumar geelle iyo magaalada carta waa meeshii ugu saxsanayd ama meeshii ugu horeysay idhaahdo ee Soomaaliya isu keentay ee dawlad u dhistay ee madaxweyne Cabdiqaasim Salax Xasan la yiraahdo Allah xafiday halka lagu doortay ee waxan maanta la haystay jamhuuriyadda saddexaad waa meeshii lagu yabyabay niyahow adiguna waxaad leedahay waa meeshii ugu ayaan dareed fiiri say isu keenaysaa waxna waa aqliyan waxna waa cilmiyan la kala qaad عقليا marka la fiiriyo ha wala dhihi karaa yani waxba la hagaajiyay oo Soomaalidu iyadoo kala yaacsan yaa maaragtay to la isu keenay oo waa loo heesay oo waa loo buraanburay oo waa loo qiirooday oo dad badan baa istaaga ka dhacay oo waxaan ku leeyahay qaar badan baa xitaa meesha kuwa naf baxaysan filayo oo dad badan baa meesha isugu yimid laakiin cilmiyan istiraatiijiyadii meeshan laga lahaa iyo qorshaha degana hagardaamo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladnimadeeda iyo yani miisaankii ay dawlad Soomaaliyeed lahayd lagu la dagaalamayay buu ahaa waana xaqiiqda dhabta ah jirta Ismaaciil Cumar Geelle waa run waa oday Soomaaliyeed inuu oday Soomaaliyeed yahay baa maxaan ku leeyahay lagu aaminay oo dadku ay meesha ugu tageen waxa dhibka u geystay ee ilaa iyo maanta naga soo harila kow waa cadaalad darro sidee waa dulmi fasir yani in ummadii Soomaaliyeed magacyo loo kala bixiyay magacyo ku salaysan dulmi iyo cadaalad darro qabiil ahaa barku xagee ka yimid barku qof wax dheer misabeel baa beel wax dheer yaa isu tiriyay dadka yaa intuu tiriyay nimanka la yiraahdo jareer weyne iyo maxaan ku yiraahdaa reexamar iyo maxaan ku yiraahdaa iyo bandhabow yiri Soomaalida kale way keenayeen yaa tiriyay xagee lagu ogaaday way Soomaalinimadooda hoos loogu dhigayaa سيقف Soomaaliya uga suuroobi kartaa inuu qof kale oo Soomaaliya xaqiro barku tilmaamo ma uu xaqiraba noloshiisa iyo dadnimadiisa uu yiraahdo waa haaf يعني ظلمiga iyo cadaalad darrada maalinka nala koowsaday waa ka maanta jid iyo jaha aan uga baxna aan garan laanahay waa ka al-shabaab ay ka dhalatay waa ka balaayi iyo khuraafaad iyo maxaan ku yiraahdaa turmankii dhuusa mareeb joogay ay ka soo baxeen ee qoryaha qaatay waa ku idee maxaan ku yiraahdaa ninkii duuli jiray ku hogaamin jiray muxuu ah ya xanaan wariya Soomaaliya ay bali kaadiye dad yani gruubyadaas oo dhan oo magac diimeed wato oo dad cun meesha ka soo baxeen waa cadaalad darrada dhashay war kuwaas iskooda halka looga dhashay waa walaal iyaga oo waxay jooga iska xayreysta kuwan kalena maxaan ku masaajid bay ka qeyli jireen oo ka murmu jireen laakiin inay inta qoriga qaataan oo dhibaato geystaan aad maanta mashaqada aad aragtay ma farba kayfa keen cadaalad darrada keentay sideedaba dhibaato hay ka timaadaa ummadii hadii cadaalad ay hesho oo Ilaahay yani ay u waafajiyeen inay cadaalad helaan waxa weeyaan way kala nabad gashaa maalinka ay cadaalad darra timaadana waxa weey way isku yaacdaa way isdishaa way isqalataa cadaalad darradii halkaas aan ku qaadanay aan ku qaadanay en ka soo qaadanay Djibouti lamayna dhex fadhiisan xamar baa la soo dhex fadhiistay kadibna way faaftay Djibouti maxaa yahay la dhex fadhiisan xamar baa la soo iyadoo in la dhex joogay dulmiga iyo cadaalad darrada xamar loogu soo waariday markii xamar la keenay xamar bay sidii miinadii ugu qaraxday meel walba way gaadhay dulmigaas iyo cadaalad darradaas fiiriteeda kale Ismaaciil Cumar Geelle waa adawga koobaad ee Soomaali oo dhan ay leedahay لا وأضيق كليه هذا وساس أتقنا صومال أضيق أبوه أنا وحنا أقنا إسماعيل عمر جيل ما حق غيره حمان قارة وما قبو وحدنا كمله حكوية والله هاي عذو إنه كليه وحور بعد نولاده كليه ودن كيسينا واحد استاني كاس يكادي ودن وليه ما هيسته إنه كليه وحور بعد شرو إنه كليه مدح هذا إنه كليه أضيق هذا إنه كليه صومالي هذا إن أنت كلو أردن أي سجعت كيسو كهوس كلام بربا ما نقولن أبى ضد كان وحي وكدامي وديرا وقيبية ويرى هذا ورسدا يلا كي ويمادنا ماشي حنبو وقبل اللعبة كي وأركو إنه حوجا يرقو وناك اللي يمدنا سيد يهود ولا درا ولا لا فرماتشار لا درا حسن شيخنا تايرسن فيري هذا فرماتشار كل مرة درا سوا تايرسن هاي هذا دجال كسين جايوي عندك مو وديني أنا من الحين بارا هذيك العدوي وكذا waxaa loo arkaa ninkan aad leedahay waa cadow kubada Soomaaliya oo arkaa waxa loo arkaa ama uu yahay sida dad badan aaminsan yihiin ninkii dawladnimada Soomaaliya dib u soo dhisay ee Soomaaliya isu keenay ee ka odayeeyay ee saldhigga u noqday ee hoyga u noqday ee qaar badan oo siracsan baasaboorada wadanka maaragtay u fududeeyay
waxaa loo arkaa markii Soomaaliya qaraxyadii baro ka badan ninkii ugu horeeyay hel walaal soo diray ciidamada si la haday ku dhimanayaan waxa weeye shir kasta oo weyn oo Soomaali iyo maaragtay lagu taageerayana ninka dawladdiisu ay taageerto dawladda Soomaaliya garabka iyo heelka iyo walaalka u tahay baa loo arkaa yaa loo arkaa oo yahay adiguna waxaad leedahay cadawga say soo qaban loodaas feere shir kasta oo Soomaali loo qabanayo ka soo bilowkii carta oo Ismaaciil Cumar Geelle uu ku lugli anigu horta Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geelle waan kala saaraa isaga madax ka waa shakhsi waa shakhsi siyaasadda xun ee uu yani Soomaali ku wareerinayo yu Djibouti ku haystaa oo Djibouti waxa weeye haday hadlayaan darashadaha xidhaan hey ambalatigna inoo xidhay way ku leeyihiin darashadaha ambalatigna waa la maqlay hadii kale Ismaaciil baa maqlay ku leeyihiin 150 kiiloomitir jira fiiri Ismaaciil Cumar Geelle meel kaste oo dhibaato Soomaaliyeed ay taal isaga fadhiya isagana mas'uul ah Soomaalida garan isu keeniddan hadaad adigu isu keenay u taqaano oday Soomaaliyeed oo kala geeyo ahan anigu u aqaanaa waxaan u aqaanaa odayga maanta godka Soomaaliya ay ku jirto ku riday aqli ka soo saara na aan la haynin walina ay Soomaalida daba taaganta oo wax moodayso ninka noocaas wali ninka ay wax moodayaan hagardaamadii uu u qoday dhibkii uu u geystay dhiilada uu u xambaariyay dhabarka uu saaray ilaa iyo maanta ka dhex dhawaaqaysa ee waliba Muqdisho ay hoyga u tahay lagama bogsanayo ilaa raadadkii Ismaaciil Cumar Geelle la tirtiro oo meesha laga saaro kuwa waxay deesteen loo tirtiri kare wala tirtay wala siibaya dib ugu soo noqon qodobkeena hadda kulan baa la isugu yeeray kulanka ma jamhuuriyadda saddexaad haddana carta lagu dhisayaa mise 4.5 baa loo dabaaldegaya ma waa olole doorasho oo uu ku jiro odaygu olole doorasho weey waxaan leeyahay Xasan Sheekh iyo nimanka Soomaalida ee meesha yaa loo yeeray ikaadiyo waxa loo yeeray hogaamiye kooxeedyada Soomaalida loo yeeray Soomaaliya maanta dawladda heshiis ku tahay ma laha dastuur heshiis ku tahay ma laha aragti siyaasadeed oo midda kale ka xoog badan ma jirto nin walba wuxuu la tagayaa dastuur isaga u gaara dawlad isaga u gaara siyaasad isaga u gaara aqli iyo farsamo isaga u gaaro nin waliba la tagayaa mid ku aragtiya iyo mid ku dawladda iyo mid yani fahmi kara ma jiro Axmed Mudane dawlad buu gaar u yahay inuu tagaynina waa u malaynaya lafta gareen waa dawlad gaara qorqor waa dawlad gaara Xasan Sheekh waa dawlad gaara Dani waa dawlad gaara dawlad gaara kaadiya laga nin walba wuxuu rabaa in la yiraahdo dawladda heblaayo oo carta laga soo garan mas'uul dawladda madaxweynayaalaha rabaan meesha inay tagaan waxaan dhihi lahaa marka isagu yuu casuumay intaadan wax dhehen cid walba casuumay Cabdiqaasim Salaad iyo Farmaajo waa diideen baan maqlay nimankaas aqli ku haray Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ninkii maxaan ku yiraahdaa ciidina uma maqnay ceelna uma qodna la habeenka waan ooyay ma habeenka carta habeenkii Ismaaciil maxaan ku yiraahdaa ninkii la yiraahdo Cabdiqaasim Salaad Xasan shilaabo meel aan ka daawani hal meel baa waxaan loo taalay hal dhala hal dhala oo dhiishli yaa idin taalay yaa noo taalay magaalada dhan bataasa taalay ma shilaabo dhan Farax Daawud nin leeyahay السلام يا ضي marka dhiishki Farax Daawud ka daawanaysa halkaas ka daawaneyn marka Cabdiqaasim la doortay khudbadii uu sheegay ciidina uma maqna ceelna uma maqna dad baa suuxay adigu kamid ma ku soo ma kamid ma laakiin qolada qeyrotay waan ku jiray sabab fahmay in leeyahay maxaa waa Cabdi Soomaali oo meesha maxaad ku haystay oo dadkii isagu istaagu ka dhacay موجود إنه نولي إنكاره. سيدا وأنا أترك وقعي. قري سومالي بلي قري سومالي. قري سومالي. ها قري سومالي. من رش لوا. ها. مركا أديك ما أنت مصيبتي ونوسو قنتي. إن محامك إلى هذا تماشى على الوفاء. ها وجهكم حوي ماشي لسوي هذا. كليه والله الدورة شوي يسوي حكولية عشان يلا بتنقول هذا الجمهورية دي استدحاد الصومالي ما بقى جمهورية دي استدحاد وحيكون على الطيب ماشي اللي هذا إن دوفار ربي يكون على الطيب. المليون نيروبي أكتر. ما تي. تاسي وحي أحد تي عرض وحي أحد عند جران كرت مشيت. دستور ما لهين. فدرال ما هين. يونتري ما هين. بقرطوية ما هين. معمول قبلات ما هين. waxay ahayd ilaa iyo hadda Cabdiqaasim wixii loo soo xambaariyay ma uu sheegi karo anna ma garan karo laakiin tii saddexaad ee dhalatay labadii jamhuuriyadooda hore mid waxay ahayd tii civil ka ahayd tii labaadna tii kacaanka October ee barakaysnaa buu ahaa ee ilaahay ummadda samada uga soo riday ee ummadan ay wax ku noqotay ku baraadhay ku barwaaqo meesha la isku gafisay ii kaadiye ma adan ninkii dan gaar la waa isaga nin kasta oo Soomaaliya
oo soo gaaray kacaankii bariisamaadkii u yaqaan oo soo gaaray kacaankii bariisamaadkii u yaqaan waana meesha uu ku barakoobay ee wax ku bartay ee wax ku noqday maanta jilka يعني أنا وحي كبل لو ده إلى يوادو محمد يقول هذا حسن شيخ أنت قول حيسا نن عن دولة الصومالية أين وحبرين هل كان سؤال عن برنامج كل كورة قصينا كان حقلية نحكي رالو عبد إسماعيل سمعت رمضان ها ما أرك لو كان كارك ما ما له ورئيس اللي قاعد يحوي يدي الصومالية اللي بمشي ما صومري وسياد بري حسن شيخ محوها يا سو موجه نوشة واحد ما سو محوها يا سو هذا كعاك وابرك وصح ومجرم ولا ليه غير وصح مديده يعني aragtida loo kala duwan dad badan baa yani xukunkiisi ku dhintay dhibaato badan baa ka dhacday xukuumad mujrim ah inay ahayd lislama diidana laakiin dhibka ay geysatay iyo waxa ay qabatay ka badan maanta labadiiba marqoodi waa la hayaa dhibkii ay geysatay ee Soomaaliya markay nimcadii xajin weyday ee barwaaqadii iyo maxaan ku nin walba Soomaalidu dadka cuntada rabeen afka loogu guro ما هي ودنك لودس ودنك waa loo dhis maxaan ku yiraahdaa waa loo barwaaqay qof kasto oo Soomaaliya miyiga isagoo jooga ayaa waxbarashada loogu geeyay lacag la'aan caafimaadka loogu geeyay ilmaha loogu talaalay hooyada lagaga umuliyay dadkii qaaxada qaba ee la karantiili jiray maxaan ku inta la soo daayay kaniini lagu riday sidii dhuuqii Soomaaliya garan yaani qof kasta oo Soomaali ah degmooyin dhan iyo dhul dhan baa waxay ku yaani dhismeen dadkii abaartii daba dheer laga soo qaaday kamid ahaayeen hadda Saalax iyo waxa kamid ahaa malahayga maareeye iyo reeqadayaasha xishaan fiiri soo Cabdiraxmaan inuu ku jiraan oo maleysay Jibriil sanaag bay ahaayeen dadkii la keenay Reesool iyo Sanaag iyo tog dheer bay ahaayeen saddexda gobol baa gabagabada markaas qof kasta oo Soomaaliya dawladii kacaanku dawladda waxay ahayd wax ka dhigtay ee waxbarasho lacag la'aan ilaa heer jaamacadeeda Ismaaciil bartay baa ugu nacay kaadiya waxba ma jazaarku waa jira dunida dawladdu dhibna way geystay dad bay leeqday oo hargeysa diyaaradii ka duusha duqaysay ma diidin laakiin maxaa kalifay waa in la isweydiiyo waay نوشك معك اللي شلي مركي محن كل هذا أنت لا أفكر لو جوري عنشور تنو بلاش لها ما دن جاره الدولة دي كوقبتي بعد أود جاره هو قبتي استمر كديار دون تيك كعضي أي يد الدقينيس ويجي السؤال اللي سويدي وحلا قد علمي سمالي بيوتها marna yada cunto afka ugu gureysay oo qof walba maxaan ku hooyada ugu geenaysay talaalka guriga iyadoo ku jirta ilmaha iyadaba talaalaysa maalinkii dambe yada diyaarada ku duqaysay waay say ku dhacday macnaha waxaan ka fahmay hadal su'aashaada in lagu qasbay ma waxa ku dhacday waa in wax la isweydiiyo waa maxaa la isweydiiyay aan ka soo gudbin yaa diidatay shirki شركة عبد القاسم واديدي مدحيس الله راجيو ميل ونكسن الله جيو محمد عمرنا الله وبركاته محمد عبد الله فرماتشو مدحوينها سو سعودية الصومالية سجن محمد ولا هذا اسبوع الرباع المركله مدحوين اللي هذا سونا واديدي بالليل كواديدي بان انا ما عوده احي ماشن سيدهدبا اسماعيل عمر قيل حمان يا شرمويه خير مله سيدهدبا qofka bani aadamka waa inaad wax un ka barataa Soomaalian garan waa in aad ogaataa yaani qofkani waxa uu ku yahay dad meel cidla maxaan ku yiraahdaa aad gabgableyso ama caadifad reernimo ay ku qaado aday ku laakiin waxaan hadana si aad u sheegaya odaygaas Djibouti inuu wax badan u qabtay ninka aad sida ugu dhaliilay Soomaaliya ugu يعني Djibouti hortii wax macna la ma ahayn Djibouti maanta waa dal siyaasad ahaan dhisan awood leh dhaqaalihiisa xoogaa u soo kobcay aan in kasto dadka ku nool bay dhowr boqol oo kun yihiin wax 800 oo kun meelaha Soomaaliya garmaliga wala zeer anigu maliga waa gaari waa la gaari waa la dhihi karaa yaa tiriyada way tira koobeen milyan buu gaari warfiiri waxa iska daayay wixii cabirka guud iyo waxyaalahan Google lagu soo qorayo iyaga sheegtay dawladda sheegtay daha dawladdu waa xoogaa waa isbuusaysaa laakiin dadka la soo tiriyo way waa maasan tahay muhiimadda waxay tahay qodobkan ka gudubno oday Ismaaciil shar mooyaan oo khayr kala soo oday Ismaaciil waxa la leeyahay daadiisu waa dhowr iyo 77 ma sha Allah sharciga Djibouti waxa la yiri 75 haduu madaxweynuhu dhaafo haduu qof ku dhaafo madaxweynuhu Soomaaliya 75 muxuu xukumayaa
إيكادي qof 70 gaari maxaa harayba هاي ساسا شرعي ku qoray hay maanta baarlamaanka fadhiistay waxa la yiri waa ha socoto ilaa 100 Ismaaciil dalku muu ka marba xisbiga hadna baqasho horta ma haysan mid kale ma tali karo nooma muuqdo minamna kuma arag Ismaaciil dalku muu ka marma يا سمية بس يا سمية ما haysan mid kale ma tali karo nooma muuqdo minam hatta Djibouti hatta riyo kuma arag yani ma laguma riyoon qof Ismaaciil oo kala inuu soo bixi doono haduu dhintay isaga madaxweyne ahaanaya yani waa sida laga aaminsan yahay qasriga Djibouti sida laga intuu haduu dhinto madaxweyne kale loo magacaabo isaga madaxweyne ahaanaya لا إله إلا الله رسول يعني وقابك أوجو فكريه عقلي كلا إنه ماشي يالله وما ملاينه برلمان كاسمية برلمان متشلو واحد وإسماعيل عمر قال له برلمان فيري هذا حمر دولته هو حسن شيخ مدحونه هو حسن شيخ برلمان هو حسن شيخ بيتوني هو حسن شيخ رئيس الوزراء هو حسن شيخ وزيرك هو حسن شيخ عقلي قاس حاجة حسن شيخ كليم Djibouti buu kala yimi Djibouti buu kala yimi soo kala yimi dib waa odayana u soo sheegay Soomaaliya waa dhaxaasa marka maxaan ku raadayay yani wax badan baa noo muuqda waxa si saan rabnay inaan u hadal lama rabno inaan cilmiyeeno ha oo aqleeno Soomaaliya inaan doonayna odaygan waxa uu yahay fajistow burjiwaasi ama odayna ku xad gudbin odayga waa fajista ma taqaana waa maxay fajista fajisto waxa uu qof yani burjiwaasi yani ma qofka kaligi noolaalaha kaligi wax ah يعني قفكن وفجيستها دوري وقف يعني isaga mooyane aan ahad kale ogolayn umada kale oo dhan doonay in ay maxaan ku idhaahdaa isaga gadaashiisa ay ahaadaan ما odayga intuu umada odayga anagu fiiri xilwa ayaa ninkan shakhsi wareed anagu Soomaali baan xilka wuxuu hayana waa Soomaali madaxweyne Soomaaliyeed beerka laga laadaya aniga qof Soomaaliya fiiri aniga qof kasto oo Soomaali buu yahay ninka aniga qabyaalad ama qabiil ama jamac waa reehebel iska maaragtay to dhaadhicinaya oo marka aan wax yaani sheegayo ama aan wax dhaliilayo arka inaan maaragtay qofkaas ama reehebel aniga qabiil kama hadalo qabiilka Soomaaliyeed uu wada sharafan yihiin waxaan ka hadalno waa siyaasad iyo hogaamiyaha siyaasadda Soomaaliya RBB marka RBB waxda iska walaaqatay laakiin hadda waxa ma xisbiga waa kooxda xasan maxaan ku ahaa Ismaaciil Umar Geel aqliga laakiin Ismaaciil Umar Geel maanta uu yiri sanadkii lixaad talay doorto waa musharax baanahay aqliga dadka wuxuu ku mid wuxuu yiri aniga dhalinyarada reer Djibouti baa iga codsaday inaan markale sharaxo beenala kaatiba iyagaana maarad soo jeedintaas beenala khaa'in umad reer Djibouti oo ku dhintay qolalka ku wada xareysan halka maxaan dhalinyarada reer Djibouti waa beentiidii Djibouti dhalinyarada miyaa joogtay dhalinyarada dir laga maarmaan leeyahay ha dab waa sida sabab ku dhiiba laga maarmo isaga aaminsan ma reer Djibouti dhalinyarada Djibouti jigjigiyo waxay dhoobantahay meesha la yiraahdo maxaan ku raadayay iyo dir dhabay dhoobantahay halkaas ay dhoobay iyo shaqo ka raadsadaan كوب شاه اللي جماعة فيري وشركة ورمشوا أفريقيا فيري ها ما وجبوتي هذا بغشوا وشركة إسماعيل عمر جلالية مركز شركة ديزا إن ليه ما إن هذا ضدك وكوكا ولا ضيع وحي سايس كورا ما جبوتي هنا شو ضم بيسا هدي بول بي ليه ولا يوم مرمو ها أو مزفني ليه ولا يوم مرمو أو ماركتي كيروان دي جو منوا بول كجامي ليه ولا يوم مرمو إسماعيل ولا يوم مرمو سامع زامبل ولا يوم مرمو يا مرماني ولا بدي سوي لا مارمو ولا جعل يحيى وضع هذا تاني ولا بقومني زاقورت وجرا لا ما مارمو ولا جعل أنا هذا لا مارمو ولا جعل ما أنا إسماعيل ما أنا إسماعيل أورجلو أمضى الثلاثة هذا يضع إسكال أمضى قف ملها وايه صح حد أوجانيسا كوا ساق كله هو جامين تشجعني إن أيسن طلع أمديد هينين أين مصالح أمديد هينين أين الدنا قرن الدولة هينين أيهين كو حق وليس تا أو مافيا أو كنا حديق ضد كشعب كا يبوب كهانتلو ذا جنات دير أو معياه إليهن ضد كيف يسودين هل كاس يلوقيان رجع واحد كوسر عرب رجع هذا اللي عسومي هذا هل فرينا ودر كلام محاولة سجت شوق هذه إسماعيل عمر قال خير مله aad ma soo saaxiibka Jaamac Xasan Cabdullaahi iyo intaan ku soo gabagabeeyo inta inuu mar kale kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.